Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada tixgelinta hooyada uurka leh isbuuca 10aad ee uurka. Cabirka canuga waa sida liin dhanaanta oo kale. Inta lagu jiro xaaladan, canuga waa mid dhammaystiran dhammaan xubnihiisa ee jirka. Cabirka canuga wuxuu noqday dhirir ahaan 3 sentimitir, culeyskiisana 4 garaam. Makaanka saxarada waa mid aan muuqanin marka loo eego isbuucii aan soo dhaafnay oo muuqday. Canuga madaxiisa waa mid aan dhammaystirnayn ama lahayn muuqaalka caadiga ah ee madaxa. Faraha, lugaha iyo kuwa gacmaha waa mid caadi u qaawaysan. Waxaa bilowda soo bixidda timaha canuga, indhahana waa ay xiran yihiin. Neerfayaasha iyo dheefshiidka waa kuwo shaqaynaya, dhegahana waxay u muuqdaan kuwo koraya ama weynaanaya. Maskaxda waa mid caadi ah una shaqaynayso si tartiib ah. Ilaahay maqaadirtiisa. Dhaqdhaqaaqa wadnaha waa mid caadi u shaqaynayo. Dhismaha lafaha canuga oo mardhow qaawaysmayo. Jilbaha iyo gacmaha oo dhaqdhaqaaqa bilaabaya. Haddii ay gabar tahay, waxaa bilaabanaya dhacaanada dumarka. Hadduu wiil yahayna, dhacaanada ragga. Sidoo kale la soco isbuuca xiga. Maasha Allah dheh, like, share, subscribe nagu soo biir. Ha ka baqaylin walaalkaaga, ku caawi share.